dowlad deegaanka Canfarta ayaa ugu baaqday dadka deegaanka inay la dagaalamaan fallaagada Tigreeda sida ay qortay wakaalada wararka ee AFP. qof walba oo Canfar ah waa inuu difaaca dhulkiisa sida ugu macquulsan haddii uu ku difaaci lahaa xabad ulo ama dhagaxaan ayuu yiri madaxweynaha Canfarta awal Arbaca sida ay qortay wakaalada wararka ee AFP. ma jiro wax hub ah oo nawiiqi kara waxaan ku guuleysan doonaa dagaalkan ayuu intaasi ku daray. xukuumadda gobolka Axmaarada ayaa baaq kan la mid ah horay u dirtay. waxay wararku sheegayaan in fallaagada TPLF ay weeraro ka bilaabeen meel u dhow xadka Tigray iyo Canfarta. sargaal ka tirsan dowladda ayaa sheegay in dad badan oo 20 qof oo rayid ah la dilay. afhayeenka TPLF Kitaju Reda ayaa dhankiisa ku tilmaamay howlgalkan ka socda gobolka Canfarta mid aad u xadidan oo lagu qaaday ciidamada gaarka ah ee Oromia ee ka dagaalamaya gobolka Canfarta. hase yeeshee madaxweynaha dowlad deegaanka Canfarta ayaa beeniyay eedeymahaasi. dadka qaar waxay u maleynayaan in TPLF ay ku raad joogaan ciidamada gaarka ah ee Oromada, laakiin taasi waa mid runta ka fog ayuu yiri. dhanka kale dibadbaxyo ayaa shalay ka dhacay dhowr magaalo oo dalka Itoobiya ka tirsan. warbaahinta Axmaarada ayaa ku warantay in banaanbaxyo lagu qabtay magaalooyinka Gondar, Dansha iyo Injibara kuwaasi oo lagu taageerayo ciidamada difaaca qaranka isla markaasna looga soo horjeedo jabhadda TPLF. wakaalada wararka ee Itoobiya ayaa dhankeeda ku warantay in banaanbaxyo dadweyne lagu qabtay magaalooyin ka tirsan deegaanka Canfarta. maalmo ka hor ayay ahayd markii caasimadda Addis Ababa lagu qabtay dibadbaxyo lagu taageerayay militariga dowladda Itoobiya.